qiso dhab ah oo ka dhacday Nairobi, Kenya, xaafadda Islii. 3 gabdhood oo Soomaali ah dadka xaafadan ay aad u aaminsan yihiin, wadaadana u eg. qiso ku dhacday 3 gabdhood, jalbaabe ayay xiran jireen, waa gabdho asturan. mar walba 3dooda gabdhood habeenada ka mid ah ayay waxay u soo shaqo tageen inay aadaan kalabyada magaalada townka. 12 Street ayay imaadeen, taxi ayay ka raaci rabeen. waxay arkeen 2 wiil oo taksiilayaal ah. wiilasha waa Soomaali, laakiin mid baa Kenyaan u eg oo ah Soomaali Bantu. waxay dhaheen, waryaada kan baa Kenyaan ah ee gaarigiisa Nasaara. wiilkii Soomaaliga ahaa ayay Kiswahili kula hadleen. waxay dhaheen, magaaladan rabnaa. wiilkii wuxuu ahaa wiil go'aan ka gaaray gabar Soomaali ah inuu habeen magaalada u wadin lacag walba ay wataan. laakiin wuu fakiray, wuxuu isdhahay kuwan waa xijaaban yihiin ee iska kaxay. wuu kaxeeyey gabdhihii townka. markii la gaaray ayuu dhahay, dhinacee idin geeyaa? waxayna dhaheen, kalaab hebelna geey. wuu naxay, Sawaaxiligiisii ayuu isaga sii hadlay oo waxay ku dhaheen, lacagtaadii halkan ayaan kaaga soo qaadaynaa ee nasug. naxdin wiilkii darawalka ahaa. gabdhihii boorsooyinka ayay kala soo baxeen, dhar jirkooda muujinaya. kadib kalabyadii ayay galeen oo ka soo shaqaysteen. in yar kadib 3doodii gabdhood oo midda kale uu dhib sheeganayso ayay gaarigii soo koreen oo ay dhaheen, warna kaxay, Islii nagu celi. mar haddii ay gaarigii soo koreen waxay bilaabeen sheeko 3doodii dhex marayso oo ay af Soomaali u bedesheen. wiilkii gaariga la saaran inuu Soomaali yahay uma maleeyaan, wuu iska dhageysanayaa iyaga oo ka sheekaysanaya midba ninkii ku soo aaday iyo lacagta ay ka soo qaateen. xaqiiqatan ma aha wax laga sheekay karo. waxay ka sheekeeyeen mid walba midda kale dhacdadii ugu xumayd iyo wixii ay meeshii kala soo kulmeen. runtii ma aha wax afkeena soo qaba kara oo qof muslima uu ka sheekayn karo. xaqiiqatan wiilkii waa Soomaali, wuuna dhageysanayaa hadalkooda, hal eray kama baxsanayo, wuuna fahamsan yahay dadkan waxa ay meesha waadeen, wuuna ka dhacay. laakiin sida uu markii si hore u maleynayay way iska bedeshay arrintu. gabdhihii markii uu 2 alifka keenay ayuu ku yiri, xagee idinka geeyaa 2 alifka? xaqiiqatan waa arrin aad u naxdin badan. gabdhuhu waxay u maleynayaan ninkan inuu yahay Kenyaan uusan Soomaaliga garanaynin. aad ayay u naxeen, way qaraacmeen. runtiina waxaa ku margaday hadalkii, shock ayayna ka qaadeen af Soomaaliga oo wiilka ku hadlay. markay ogaadeen wiilku inuu Soomaaliya maantoo dhanna ay Soomaali ku sheekaysanayeen, warkii ay ku sheekaysanayeenna aysan ahayn war habboon oo sina ku saabsanaa, waxay go'aansadeen inay gaariga iska tuuraan. nasiib xumo, gabdhihii gaarigii markay iska tuureen waxaa dardaray gaari weyn oo booyad ah oo ka dambeeyey. innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. walaalayaal, meel naftu ay marayso iyo meel isku soo marayo ma taqaanid. waxaa kuu habboon inaad mar walba Allahaaga ka baqdid oo aad dhowrsanaatid. waxaa kuu habboon inaad mar walba khaatumadaada aa wanaajisid. wiilkii isagii qudhiisii aad buu u naxay. arrin lama filaan ah ayay markii hore ku aad. waxaa haddana dhacana waa amakaagii fajac. wiilkii waxaa istaajiyey traafikadii. kadib arrintii ayaa laga waraystay sida ay tahay ayuu arrintii ugu sheegay. kadib wiilkii wuxuu tegey masaajid caarif ah oo ku yaala 2 alifka. wuxuuna u sheegay culimmadii halkaa joogtay. wuxuu u geeyey weliba culimmadii alaabtii ay gaari uga dhex tageen oo ahaa boorsadii lacagta uga buuxday. wiilkii waxay culimmadii ku dhaheen, xaqii aad markii hore aad gabdhahan kula heshiisay ka gooso. kadibna waxaa lagu sadaqaystay lacagtii, boorsooyinkii, dharkii baawurka uga dhex arareen masaakiintii masaajidka hor fadhisay. innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. walaal kasta iyo gabar kasta oo na maqlaysa waxaan uga digaynaa falalka noocaana. waxaan u sheegaynaa inay cimrigooda meel loo soo marayo aysan ogeyn, naftuna ay tahay ammaano laguga ammaanaystay. waxaan qof walba kula dadaarmaynaa Allah ka cabsi iyo inuu dhowrsanaado oo naftiisa dhowro. waa qiso aad u murugo badan una xanuun badan. walaal la wadaag walaashaada iyo walaalkaaga muslimka ah si ay ugu cibaaro qaataan.